gacantaan ku jirnaa dacaayadaha maxaanku brobagandada oo mashruuca Soomaaliya dib ha u soo noolaato la shakhsiyadaynaayo la qabiilaynaayo la goboleynaayo waxaasoo dhamme waa astaan iyo calaamooyin cadowga u shaqaynayo waa astaan iyo calaamooyin dad cabsaday oo meesha in laga dhaqaaqo oo loo baxo iftiinka iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka loo baxo dadka baqaya waaye dad badani Soomaalidu waxay ku maamahdaa caruurtu habeenkii cabsadaan waayeelkuna maalintii dad badanaa stageka caruurta joogo oo weli markaan dadkii aan colaadda ka cabsan jirin ee colaadda u bareeray ee dagaalka ku soo hayay ee khilaafka ka soo shaqaynayay ee xabadaha dadka Soomaaliyeed ku ridayay maanta waxay col leeyihiin nabadda horumarka dawladnimada soo hanashada meelihii maqaamkii aan ku lahayn caalamka ee dib aan u soo haranayno nabadda aan maalin walba ku sii dhaqaaqayno hore aan ugu sii socono intaasay ka baqayaan waa kuwii shalay colaadda aan ka baqi jirin colaadda ku dhiiri jiray dadka Soomaaliyeed horay u soo colaadiyey xabada ku soo riday dagaal u soo sameeyey la yaqaano maanta waxay ka baqayaan nabadda waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed tashwiishka iyo dacaayadaha maxaa ku raadayay ka dhagool ka ahaada dalkani waa dhaqaaqay waa socdaa dhinaca nabadda dhinaca dawladnimada dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca caalamka doorkii aan ku lahayn oo la yaqiinay meesha u ahay inaan dib u soo ceshanaan ku soconnaa cid kasta oo aan kaashan karnana waa kaashanaynaa cid kasta oo safarkaas dheer aan ku jirno